gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani Axmed Muumin Said oo waraysi khaas ah siiyay TV-ga caalamiga ee Soomaaliya TV xaruntiisa magaalada Boorama ayaa wuxuu dhaliilay nidaamka maamulka ee xukuumadda madaxweyne Siraayo iyo siyaasadaha ay ku dhaqanto. Gudoomiye ku-xigeenka wuxuu farta ku fiiqay wasaaradda maaliyadda oo uu sheegay in cashuuro saa'ida ay ka qaado dekedda macmalka ee Seylac iyo xafiiska socdaalka ee magaalada Lawiyacadda oo uu sheegay inuu dhibaateeyo dadka safarka ah ee iskaga gudba Djibouti iyo Somaliland. gudoomiye Axmed Muumin Said oo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu hadalkiisa ku bilaabay waxa kamid horta Seylac gobolka Seylac dhibaato badan baa dadka shacabka ka haysata sidoo kale dadkeenu boqolkiiba 90 dadka waxay u badan yihiin dadkeenu Djibouti aad baa reer Somaliland u degan yihiin ma awalba dadkaas marka ay soo socdaan waxay aad dhibaato uga kulmaan waxa weeye controlka Lawiyacadda ingiriisiga xoog bay dhibaato uga kulmaan dadkaas oo madax ka koob dadka loo dhibo ama qofka dumarka indhaha iyo caruurta iyo sibiga si khayr sharci ah oo dhibaato badan baa dadka loogu geystaa halka cabasho badan baa mar walba ka taata ilaa imka dawladdu markasta dhowr jeer oo noonu ka hadalnay talaabo laga qaadin shaqaalaha halka jooga isbedel lagu sameeyo waxaad moodaa inay u dhashay meesha waayo kastankan Seylac iyo kastankan muxuu ahaay kale shacado ku wala bedelaa laakiin ka Lawiyacaddo ilaa imka loo bedelo dhibaatada ugu badan ee dadku ka cawdana waa ingiriisiga Lawiyacaddo waa dadku u dhiba talabaad Somaliland laba dekedood bay leedahay waa dekeda Berbera iyo dekeda Seylac waxyaabaha cajaa'ibka la yaab soo kamida dekeda Berbera fursada shidaalka wax lagu cashuuraa $12 dekeda Seylac waxa lagu cashuuraa $20 ama $19 nacam farqa inta leeg sababta loo saaray iyo cid baarlamaanka la mariyay ma jirto ciidaas ma jirto markaanu dadka in badan xog waraysta waxay sheegeen in warqad wasiirka arrimaha gudaha wasiirka maaliyadda uu soo qoray in cashuurta lagu kordhiyo meel qiimaha inta leeg wax sababta la isku dhaafiyay ilaa imka lama garan karo waxa dareemaysa markaa in cadaadis gaara xukuumadda maanta jirta ay saartay gobolka wax kale fitaana lama garan karo marka in dekedaha inay isku qiimaadaan wixii ka soo degayana xor u noqdo oo cidna la cadaadin ba aad u qurux badan ingiriisinka Lawiyacadana cabasho badan bay dadka shacabka Djibouti ka soo baxay iminka hadda gobolka nala jooga ee loo warramay aad baa looga cabanaya sidoo kale wuxuu gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani Axmed Muumin Said xusay sariir siyaasadeed oo ka jira dhanka saami qaybsiga golaha wasiirada ee Somaliland oo uu sheegay wasaarada weyd ah loo dhiibo gobolada qaarkood waxa kale oo dhaliil soo jeediyay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani madaxweyne Siraayo xafladaha qalin jabinaha ee ardayda jaamacadaha ee uu ka qayb galay madaxweynuhu taas oo uu sheegay inaan loo baahnayn balse wuxuu sheegay in loo baahan yahay inuu shaqo abuur u sameeyo dhalinta waxaana ka mid ah hadaladii gudoomiye ku-xigeenka abashooyinka ugu badan inta badan waxay ka jiraan garfaha sideenka awdal oo kale wasiirada horeyna noo sheegnay wasiirada hadda ka jira matala Somaliland ka wasiirada gobolka matala waxa weyn dimaha wasiiro oo dhigma kara gobolka waayo gobolka waa gobolka kaliya miisaanka ugu weyn kale Somaliland oo gobolkii laga aasaasay Somaliland marka waxay xaq u lahaayeen ilaa imika kama hayaan markii hore gobolka wax lagu cadaadin jiray maadaama ay madaxweynaha lahaayeen wax badan de halkaas lagu dhaafi jiray wasaaradaha tayada leh dalku leeyahay ilaa imika lagama hayo inay raawada ka dhaxmo wacan inay ka dhaxmo qoway shaqadii shaqaalaha iyo boosaha iyo isgaarsiinta iyo beeraha maha wasaaradaha sare ee dalka macna badan ma sameeyso inuu jaamacad madaxweyne yimaado iyo waxa uu sameeyay dadka macna badan in inamada jaamacadda ka soo baxay ugu sareeyo shaqo abuursi inamada jaamacadda in si shaqo abuur loo sameeyo in dawladdu ku mashquulsho in loo abuuro dadka shaqo abuur dawladdu soo jeedin si kastaba ahaatee hadalkan ka soo baxay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani ayaa muujinaya hadallo muddooyinkan bal isla dhex marayay gobolka Awdal oo ku saabsanaa dhinaca cashuuraha ee dekeda Seylac iyo xafiiska socdaalka ee magaalada Lawiyacadda oo ay dadku cabasho ka muujinayeen Hashim Sheekh Umar Good Soomaaliya TV Boorama.